السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkani aan kaga hadli jirnay taariikhda nololeedka fanka Bollywoodka haddii aan lahayn kuwa koonfurta India iyo wali Bollywoodka balse maanta barnaamijkani ma ogtahay ayaan rabnaa ee toddobaadla ahaa inaan kaga hadalno barnaamijka kaga horeeyay haddii aan kaga hadalno superstar-ka la wada jecel yahay Mitum Chakraborty Dada of Bollywood maanta waxa diiradda inoo saaran superstar-ka la wada jecel yahay Khilari Akshay Kumar Khiladi of Bollywood haddaba Mitum Chakraborty haddii oo dhiga sagaashamaadkii wacdaro isaga dab yarshideena oo ka liidanin superstar Akshay Kumar daawada ma ogtahay sanadkii 1994 sanadkaasi sanad qaas ah inuu ahaa superstar Akshay Kumar ma ogtahay daawada sanadkaasi Akshay Kumar inuu sameeyay 5 filim oo hit dhameystiran ah afar kamid guul lixaad ay gaareen filim kalena oo ah mid dhexdhexaad ah ma ogtahay daawada Akshay Kumar sanadkaasi inuu la shaqeeyay atoorayaasha Bollywoodka kuwooda kala duwan ma ogtahay 11 kaas filim oo sameeyay Akshay Kumar 5 kamid inay yihiin afar kamid inay yihiin hit dhameystiran mid kalena oo ah filim haddaba Akshay Kumar sanadkaasi sanad u qaas ayuu ahaa mana aha sanad soo mari doonto mana laga yaabo inuu yiro sanadkaasi maxaa yeelay sanadkaasi sanad aad u barwaaqo ayuu ahaa Akshay Kumar haddaba filimada tiyaatarada loo saaray waxay kala ahaayeen 21 January 1994 waxaa tiyaatarada loo saaray filimka Elan waxaan ugu xigay filimka Yedilagi waxaan ku sii xigay filimka Jay Kishan balse ma ogtahay daawada Akshay Kumar sanadkaasi 1994 hidkiisii ugu weynaa inuu ahaa filimka actionka ahaa ee ku wada xifaaltameen Sunil Shetty filimkaas oo lagu magacaabo Mohra ma ogtahay filimka Mohra inuu ahaa filim Akshay Kumar iyo Sunil Shetty ee ku xifaaltameen waxaana filimkaasna hogaamiyaal ka ahaayeen Akshay Kumar Sunil Shetty Rafina Tandona waxaana filimka laadarka ka ahaa Nasruddin Shah ay Soomaalidu taqaan jawla ma ogtahay daawada filimka Mohra macna ahaan inuu yahay jartaasan inuu ciyaaray Sunil Shetty isagoo aan wada ognahay filimkaas inuu ku shaqeysanayo Sunil Shetty haddaba daawada ma ogtahay sanadkaas li Akshay Kumar inuu sameeyay filimka Khiladi to Anari kaas isla sameeyeen aktarka labada jecel yahay Saif Ali Khan iyo waliba Shilpa Shetty ma ogtahay filimkaas inuu booska ahaa Shakti Kapoor daawada waxa uu xigay isla sanadka 1994 14 October oo soo baxay Akshay Kumar filimka Amaanad kaas ay wada sameeyeen Sanjay Dutt Baba of Bollywood waxaan hogaamiye ka ahaa filimkaas Sanjay Dutt iyo Akshay Kumar iyo Divya Dutta ma ogtahay isla 21 October 1994 Akshay Kumar in loo saaray tiyaatarada filimka Ika Bay Ika kaas ay Akshay Kumar isla wada jirayeen actor Prithvi oo ahaa atoorayaashii sagaashamaadkii soo baxay ee haddana socowaayay ee ugu dambeyntii sagxad ka baxay ma ogtahay 4 November Akshay Kumar in loo saaray filimka Suhag kaas ay wada sameeyeen filimka actionka ahaa superstar Ajay Devgan filimkaas oo wada hogaaminayeen Ajay Devgan Akshay Kumar Krishna Kapoor iyo Najma ma ogtahay filimkaasi inuu laadar ka ahaa Suresh Aborio oo Soomaalida u taqaan Jackson waxaa kale oo xigay isla 25 November 1994 Akshay Kumar filimka Saqmi in tiyaatarada loo saaro filimkaas oo hogaamiye oo ka ahaa Akshay Kumar filimkaasna waxay wada jilayeen oo muuqaalo ku lahaa ama door kooban oo caabiye ah Rafiq Hassan ee Soomaalida u taqaan Bakiya daawada haddii aad tahay marka kugu horeysay aad soo boqoto YouTube channelkeena dulucda filimada subscribe inoo saar like iyo share tan hanaga iloobin wali waxa bartanka kaga jirnaa Akshay Kumar iyo 1994 wacdarihii Bollywoodka oo ka dhigay waxa uu xigay Akshay Kumar 9 December 1994 in loo saaray tiyaatarada filimka Salimna sida wada ognaayeen waxa hogaamiye ka ahaa Akshay Kumar maduu waxaana boos ka ahaa Mohan Josh oo Soomaalida u taqaan madfac Akshay Kumar ma ogtahay 1994 filimka ugu dambeeyay tiyaatarada loo saaray inuu ahaa filimkaas oo la saaray 16 December filimka Hamhembe Misal kaas oo aan wada ognahay in ay ku xifaaltameen Sunil Shetty ma ogtahay filimka Hamhembe Misal inuu hogaamiye ka ahaa Sunil Shetty Akshay Kumar Shilpa Sharotkar iyo maduu filimkan waxaa boos ka ahaa Ram Reddy oo Soomaalida u taqaan waqwaq ma ogtahay filimka Hamhembe Misal in laga soo koobiyay filimka John Yufat hogaamiye oo ka yahay filimkaas oo lagu magacaabo The Killer haddaba sidaan wada ognahay sanadkaasi 1994 Akshay Kumar wuxuu ahaa sanad u qaas ah maadaama tiyaatarada loo saaray 11 filim ee 5 kamid ay yihiin hit dhameystiran amaba 4 kamid ay yihiin hit dhameystiran halka filimka kaliya ee average ku noqdo oo ahaa filimka Salim haddaba aan eegno filimada uu guuleystay sanadkaas Akshay Kumar filimkiisa ugu horeeyay uu guuleystay 1994 wuxuu ahaa filimka Elan kaasoo aan wada ognahay in la saaray 22 January kaasoo hit dhameystiran u noqday filimka Dilagi ayaa u guuleystay isan hit noqday filimka Jay Kishan aan wada ognahay Akshay Kumar inuu double room ku matalay laba waji mid indhoolaha ee mid kale inuu noqdo bilow Afrika hidkiisa ugu weyn laakiin sanadkaas wuxuu ahaa 1994 filimka Mohra kaasoo aan wada ognahay inuu noqday blockbuster waxa kale oo xigay oo hit dhameystiran u noqday filimka Khiladi to Anari filimkaas oo aan wada ognahay in ay isaga iyo Saif Ali Khan ay wada jilayeen ma ogtahay filimka Khiladi to Anari inuu ahaa filim heesihiisa classic ay ahaayeen oo aan ku xasuusan heestii caanka ah Jurka Dil Meera sanadkaasi Akshay Kumar 12
فيلم oo sameeyay shan kamid ah filmo guul lahaa tagara ay ahaayeen afar kamid ah waxay ahaayeen hid dhameystiran hidkiisa ugu weynana wuxuu ahaa sida aan hore idinku sheegayba filimka Mohara kaasoo blockbuster noqday afar film ayaa guul dareystay oo flop noqday halka kaliya filimka ka burburay wuxuu ahaa filimka Ikabal Ika kaasoo noqday disaster hal filmna below average noqday waa filimka Jackie marka Akshay Kumar sanadkaasi sanad oo iloobi kara maaha waa sanad isaga u qaasa inkastoo filmadaasi atoryaashii ugu waaweynaa Bollywoodka sanadkaas oo la sameeyay ee filimka wada hogaaminayeen hadaba daawada adigan idaawanay 11kaas film aan soo sheegay filimka adiga aad u jeceshahay oo ah xiiseesa oo aad mar walba aad ka daali kareen oo aad daawashadiisa ku raaxaysataa commentiga inuu reeb kulay waxaan filayaa Soomaalida filimka aad ugu xiiseeyana ka helaan inuu ahaa filimka Mohara filimkaas oo aan la iloobi karin dagaalkii xiisaha badnaa ee shaashada ku dhaxmaray Akshay Kumar iyo Sunil Shetty waxa kale aad u xiisee karaan filimka kaliya la iskala baxay Akshay Kumar iyo Ajay Devgan ay sameeyay isagana filimkaasna filim aad u wanaagsan ayuu ahaa iyo filimka jacaylka saddex geesoodka Soomaalidan iyo isagana aad u jecel miyad lagi filimka Saif Ali Khan iyo Akshay Kumar sameeyay waana filim jacayl ah saddex geesooda kaajal ayaana ka wada dhaxaysay filimkaasi filim kale isagana Soomaalida aad u jeceshahay waxa jira Akshay Kumar iyo Amrish Puri inkastoo filimkaas Akshay Kumar cagta oo u saaray filimkaasna aabiisna oo ku matalay qayb liwaax la ayuu ka qaatay sidoo uu matalay askariga daacadaha gaashaanlaha iyo sidoo uu matalay marka isbitaalka la geenay ninka waalan Amrish Puri waa laadarka kaliya door walba loo dhiibay isaga iyo Shakti Kapoor ee ka soo bixi karaan hadaba barnaamijkeeni ma ogtay aan kaga hadlayno superstarka Akshay Kumar ama Qilad of Bollywood maanta intaas ayaan ku soo gabagabeyn hadii aad tahay marka ugu horeysa aad soo booqato YouTube channelkeena dulucda filimada subscribe inuu saar laagta iyo share-tan hanaga ilo sidoo kale halkan waxa aad kaga mahadcelinayaa saaxiibkay Ismaaciil Jaamac oo ah barnaamijyadan quruxda badan ee aan dadweynaha ama daawadayaasha YouTube channelkeena ku xiran aan soo daadihinayno ninka kaliya sida wanaagsan u soo editing kareey waxa kale oo isagana mahad gaar iska leh saaxiibkay Xasan Ismaaciil Xaaji Xasan Fantastic oo ah barnaamij soo aruuriyaha oo isagana mar walba ah bulshadeenta ku xiran fanka India isagoo waqti xadirkaas dhacdooyinkii noo soo gudbiya waxa kale halkan aan kaga mahad celinayaa saaxiibkay Maxamed Xuseen Caraale isagana waxaan leeyahay saaxiib aad ayaad u mahadsan tahay maadaama aad YouTube channelkeena aad sida wanaagsan ula socoto wali halkaad naga daawanayso YouTube channelkeena dulucda filimada barnaamijkan waxa idin daadihinay aniga oo ah Nuur Cabdikariin Qalinle barnaamij lamida inta aan ku kulmeen waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh